الإيمان الصحيح الصادق digniinta ilaahay uu bixiyo dadkiina iyo dunyadiina iska ilaaliya ama wadkiina iyo orihin ku ibtiloobina waxay sheegaysaa ashadu lada nikayatan ma kana sadiran amman ahsanta ilayhi hadiya jeer dhibaatooyinka waxa ugu daran qofka aad u samafalayso dhibka kaaga yimaada damqasho gaar ah u leeyahay dadka uba dadaalaysi haday ilaahay ku seejiyaan oo lagu cadaabo dee waxay carab aanad ka soo waaqsanay oo kuwa uu nooleeyay wardaysay ilaahay ku seejiyay marka waa nasiib darro weyn sida daraadeed ba qofka la doonaya inaanu ku kalifin xubbiga jacaylku uu qabo ubadka iyo oorida iyo ehelka inuu xaraan adeegsado adigoo la kuwa dabbar xaaladooda haddaad xaraan u soo shaqayso oo cunno xaraan u keento oo xoolo xaraan u dhaqdo oo waajibaadka ay ku seejiyaan oo dadka ay isku kiindiraan macnaheedu markaa waxa weeye inay aakhira ku seejiyeeno waa cadaawadan ilaahay uu sheegay subxaanahu wa ta'aala dadku waxa laga yaabaa qof turugsan oo cadow yaqaanaa kanaaba kugu daraba cadaawadan halka laga qiyaasaya waxa weeye xiriirka adiga iyo ilaahay idin dhaxeeya saamaynta uu qofkaasi si xul u saameeyay waxa afraad oo inaayadka ka faa'iideysanayna anna xifdha ad-diini min a'zam al-waajibaat diinta la ilaaliyaa baa waajibaadka weyn waajibaadkaaga waalidkaaga iyo ooridaada iyo ubadkaaga waxa ka weyn diinta la ilaaliyo marka diinta meel laga dhaca nabigu xanaaqo jiray naftiisa iyo halkiisa meel hadii laga dhaca dib kuma ilahayn inagana waa sida cagsiga reeraha waa inuu waalana waa wardayna waa qaylinayna laakiin diinta hadee dhan walba laga yimaado dee dhankiisu ka wadwaday weeye waan wada leenahay xaariga iga saaran وعشان آيات كانوا كفاية السنة أن القرآن علمنا أن ندفع السيئة بالحسنة بالحسنى السيئة وحين كل دفاعنا بالتي هي أحسن هدي حمالنا ينقول سمايو لقد كونك سنية قبل هذا وحوي طلقات هي إناد وناك كورجيس يدفع بالتي هي أحسن ركعتي كوني يكون جفاني سجد طلقات والأقربون أولى بالمعروف هو كحجانة طلقات وسي هضبع يدك كأدب كم من أب فتن بولده فقدم رضاه على رضا مولاه إن ساعة رالين وحي سيو رالي قالين إلهي رالي نقشي سيكو ريرو ذكور مري هذا يسقب صلان تذكاك وجودو سيد الله رالي قالين لها إيه رالي قالين إلهي الله سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم آيات ودليل إنما أموالكم وأولادكم فتنة حديث صحيح سيدا كسوغان سوا خطبة أخرى يعطتك هرتاجا أيالك أو حكا صبحي حسن إيا حسين لبدي إنه أووغا وها أو يرير نبا قبيسو دادير بيقى شيء ويكتر رنطرانا يا صوكا عاكفا يا مركا انتو النبي وكدا دقالكي والصعودي لبدي بميت بسينكو صوكا علي هالكا مرتي سوفريسي markaasaa wuxuu ilaahay baa wuxuu inama amwaalukum wa awlaadukum fitna dadkii niyaduyadiina waa ku imtixaananti walidi ku jirrabaya wasla kareedanti balabadan yaryar baan arkay iyagoo halkaas soo turunturoonayo ma saqrin ilaa inta imanayaan intaan idinka hor dhaqaaqaan soo dhuftay marka mid way sheegaysaayo ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam naxariistiisa sidoo naxariis badnaa way tilmaamaysaa iyo in ummadda aanu adeegsan jirin dad oran kare warda yararka soo qaada ama khudbada akhriya oran karayo badir diran jirin nabiga isagaaba adeegan jiray rasuulku tawaadiciisa kamid iyada inay mudnayd inuu dadka u sii wado ka 10 buu noo dhigay nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga laftiisa inay hawli ka soo martay ilaahay lutfigiisa wa min lutfihi ta'ala annahu la yashqu 'ala al-'ibad illa ma yutiquna min 'amal حريص إلهي وحنا نقول أنصره وحنا كريم حل كستول إن صاري دين يا واجبات قرن آيات عسك صورة فاتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج مركا قفك إلى هذا الدين تو كلف فيه كريم وجاهلا سرت الشريعة فاهمين وهي مثل حدا إلهي وحوك أنا يبقى ضدك أي دين تمكان ومثل هدي حل بصارع عبادة أدو الدم كوية أديك أي حكمة سرت كترت أديك الدم كوتا عبادة ده.
walow aad uga aragtidba xoogaa tacab iyo dadaal inuu ku jiro markay naftaadii lagu tijaabiyo oo dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka iyo hawsha aad bixisa adigay dan ku tahay caafimaadkaaga jirka iyo caafimaadkaaga ruux ayaa labaduba ay ku jiraan sidaa daraaddeed baa waxaa qawaacidka shareecadeena ka mid ah almashaqatu tajlibu taysiir marka qofka dhibaata ku timaado fudayd buu helayaa soomkii bay dhibaata kaga timi xajkii bay dhibaata kaga timi jihaadkii bay kaga timi salaadii bay kaga timi waa loo fududaynaya miyaad kari weyda isaad karayso u tuko miyaad jihaadi kari weyda iska fadhiiso miyaad soomi kari weyda iska cun wixii kalu karayaa unbuu yeelayaa kulamaa daaqa alamru ittasaca الضرورة تبيح المحذور انتهى قاعدة كورمت قواعد الشنطة كم المشقة تجلب التيسير ولها فروع من القواعد قاعدة بدل كسي فرعما ياتي لبكا قاعدة ده بركاو مصلحة الضوامها إلى هاي وكان مثل هذه اللي قولي صار دي ورشدنا دغدغيات ورشدنا إنه قوة من لبية طبعا كالسنضاد يينا إنه مرء الحرب إذا مرينا أو أي مصفينا أو بحلقة كسو صارنا سي أي لبية طبعا كابلات si wanaagsan ugu shaqayso waa iyana dawaata dambe hatta daraasadii baa caynkaas sheegayaan inuu qofku soomkani daruuri ruuxdiisa marka laga yimaado jasadkiisa kuwii jidhkuun eegi jiray ayaa ka warqaati kacaya salaadii waa lamid cudurkan afka laga xidhay marka corona miyaad arkeen dhakhaatiir sujuudayo oo kula sidaas saadam u ah qaar gaalahoon sujuud baa aqoonba waxay ku leeyihiin waxyaabaha dawaka waxa ka mid ah in la foorasado fooda la dhigo dhakhtar qalabkii dhakhtarka gashana waxaad arkaysaa fooda dhigayo la sidaanu nidhaahna dee sujuuda buu ku leeyahay laakiin sujuud ilaahay maaha waa sujuud corona laga fakanaya buu ku leeyahay marka almuhim wuxuunaynu uga jeednaa cibaadadu waa daruura waa fariida farad weeye ومع ذلك ضرورة waxaynu una baahanay oo inaga dan inoot marka dib ugu wada noqotaa asraarteeda naska ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala arsaaqadiisa uu ina siiyey isagaana ku siiyey haddana markaad bixisay buur waan kuu bedelaya ilaa wuu ku odhan karayay dee anaa ku siiyey wixii aad bixisay maxaan kuugu soo celinaya kolka horaan ku siinayay laakiin wuxuu ku waan ku siiyey haddaad bixiso iyadoo ka badan baan haddana soo bedeli oo sidaan markii hore kuu siiyey ayaad bixinaysaa sharaf baad heshay iyo magac iyo ajri iyo ammaan haddana iyadoo ka badan baaba lagu soo celinaya yaa laga helaa ilaahay hay subxaanahu wa tacaala in tuqridu allaha qardan xasana yudaacifu lakum ilaahay baa laga helaa marka adiladaas iyo nusuusta aynu soo akhrinay fawaa'id badan bay leeyihiin kuwaasa ka mid ah allah inagu waafaco wallahu aclam